qoraal Yahuudi oo lagu magacaabo Yuri Bar ayaa daaha ka qaaday mid ka mid ah dhacdooyinka basaasnimo ee taariikhda colaadda Carabta iyo Yuhuudda muddo hadda laga joogo 43 sano kuna beegan sanadkii 1973 markii uu dhammaaday dagaalkii dalalka Masar iyo Suuriya ay la galeen Israa'iil ayaa qoraagan Yahuudiga ahi waxa uu banaanka soo dhigay dhacdo xiiso badan oo muujinaysa kiisas ka dhex dhacay taariikhda sirdoonka waqtiyadii ay socdeen dagaaladii Carabta iyo sidoo kale Israa'iil. Qoraaga lagu magacaabo Yuri Bar ayaa buug uu soo saaray waxa uu kaga sheekeeyay dhacdo uu sameeyay basaas caan ka ah sirdoonka Israa'iil iyo Masar oo labadoodaba u shaqayn jiray gaar ahaan intii lagu guda jiray dagaalkii ay Yuhuuddu u taqaanay Yom Kippur halka wadamada Carabtana looga yaqaanay dagaalka bisha Ramadaan sidoo kalena dunidu u taqaano dagaalkii October. basaaskan waxa lagu magacaabi jiray Ashraf Marwan asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa dalka Masar sanadkii 2007 ayuu ka soo dhacay guri dabaqa oo ku yaala magaalada London oo uu deganaa ilaa haddana sababta keentay dhimashadiisa iyo inuu dabaqaasi iska soo turo lama oga. Haddii aynu dib u milicsano taariikhdii uu ka tegay ee adduunka ka yaabisay waxay ahayd inuu ahaa sababta guusha u keentay dagaalkii sanadkii 1973 xilli ay Israa'iil quus ku dhoweyd oo Suuriya iyo Masar ay weerar laba geesooda ay ku soo qaadeen maamulka Israa'iil. buugga uu qoray ninka Yahuudiga ahi waxa uu ku xusay in Ashraf Marwan uu ahaa geesi hay'adaha mukhaadaraadka Yuhuudda ka tirsanaa kaasi oo guul u soo hooyay. waxa kale oo uu sheegay in dalka uu ka soo jeedo ee Masar aanu khiyaano la ka hayn sida uu ku dooday ninka buugga qoray waana nin siro culus ka iibiyey cadawgii waqtigaasi dagaalka uu kula socday. Ashraf Marwan waxa magaciisa afgarashada ama magaciisa sirta ahi uu ahaa Angal waxa uu 24 saacadood ka hor intaanu dagaalku soo qaadin ciidamadii Carabta uu wargeliyey hay'adaha sirdoonka Yuhuudda. waxa uu ahaa nin macluumaad badan ka hayay militariga Masar iyo qorshayaasha dagaalka iyo hogaamiyayaasha ciidamada kala duwan waana ta keentay in Israa'iil guul ka gaadho iyadoo jabisay ciidanka Carabta ee isbahaystay. waxa kale uu eegay sababta hay'adaha sirdoonka Yuhuudda ee Mossad ay u aamintay basaaska reer Masar haddana ay u sii jirtay 50,000 ilaa 100,000 oo dollar waqti kasta oo macluumaad u keeno bishiiba hal mar ama laba jeer taasi oo ay la socdaan hadiyado iyo abaalmarino qaaliya oo isaga lagu abaalmarin jiray. waxay jawaabtu noqotay in ninkii Marwan xogta siiya uu rabay inuu macluumaad baaxad leh uu helo maadaama waqtigii uu ku adkaa Israa'iil cabsi badan ay ka qabeen in ay dhulka la simaan Carabta isbahaysatay ee Masar iyo Suuriya. taasi waxa ay keentay in 24 saacadood ka hor ay helaan xogta ku saabsan dagaalkaasi. waxa uu qoraagu u su'aal geliyay waxa uu macluumaadka hore uga diri waayay Ashraf Marwan ee uu diray 24 saacadood ka hor waxaana uu qoraagu buugga ku dooday in Marwan uu weerarkaasi loo qorsheynayay oo si degdeg ah ama lama filaan uu ku ogaaday qorshaha gaarka ee qorsheysan oo looga soo sheegay magaalada London ee waddanka UK. kadibna Marwan waxa uu si degdeg leh ula hadlay xubno ka tirsan maamulka Yuhuudda iyo sidoo kale hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. qoraagani waxa uu halkaasi shaki ka geliyay in uu Marwan uu daacad u ahaa hay'adda sirdoonka ee Mossad sababtoo ah waxa uu aaminsanaa in Masar la fahanteedu uu aaminsanaa taasi oo ay sababtu ahayd in uu waqti dambe ogeysiinayo in weeraro kaga soo socdaan Israa'iil. waxa kale oo qoraagu ku dooday in sirdoonka Masaaridu aanay aad u jeclayn in ay xog muhiim ah siiyaan qof Marwan oo kale oo aad uga dhawaa maamulka sababtoo ah Marwan Saddaq waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Masar Jamal Abdel Nasser iyagoo cabsi ka qabay in uu noqon karo basaas labada dal u dhaxeeya tuhun badanna ay ka haystaan in uu xogo qarsoon u gudbiyo cadawga. hay'adaha sirdoonka Yuhuudda waxa inta badan ku adag in basaas dal kale xog u gudbinaya ka dhex shaqeeyo maxaa yeelay waa kuwo inta badan ka shakiya laamaha kala duwan waxana ay ka wanaagsan yihiin sirdoonada reer galbeedka oo ay ku badan yihiin waxa loo yaqaano double agency. Israa'iil mar walba waxay ogeyd in uu weerar kaga soo fool leeyahay laakiin aanay ogeyn xogna ka haynin goor la soo weerari doono. waxa kale oo ay ka warhayeen in Masar aanay awood military u lahayn in dagaal baaxad leh ay la gasho
balse madaxdii sirdoonka militariga Israa'iil ee waqtigaasi ninka lagu magacaabi jiray El Sierra waxa uu ka shakiyay xogta sreed ee Marwan uu soo gudbiyay, laakiin waxa uu isku qanciyay in awoodda ciidankiisu ay ku filan tahay. Laakiin agaasimaha hay'adda mukhaadaraadka ee Mossad ayaa aad ugu kalsoonaa maadaama xog badan oo hore uu keenay lagu guuleystay, waxaana khasab noqotay in xogtaasi ay Yuhuuddu qaataan uu keeno sirdoonka Masar u dhashay Ashraf Marwan, waana ta ay ku guuleysatay Israa'iil. Ashraf Marwan waxa uu ahaa basaas aan macquul ahayn oo aad u dayara isla markaana dhalinyaro ahaa. xaaskiisu waxay ahayd inantii uu dhalay madaxweynihii hore ee Masar Jamaal Cabdinaasir oo ahaa madaxweynihii dalka Masar. Ma jiraan sabab muuqata oo Ashraf Marwan ku iibinayo sirta waddankiisa. Marwan waxa uu ku dhiiraday in uu lacag qaato iibiyana sirta uu ka hayo waddankiisa, isagoo ka hor yimid sodogii madaxweyne Jamaal Cabdinaasir oo aan isaga hore uga shakiin. waxaa la xasuustaa in hawsha basaasnimo ee Yuhuudda uu hayay ay bilaabatay sanadkii 1970 markii looga yeedhay safaaradda ay Yuhuudda ku lahayd caasimadda London ee UK, kadibna laga dalbaday in uu sir aad u culus oo Masar lahayd uu ka iibiyo. Israa'iil waxa ku adkaatay in ay aaminaan Ashraf Marwan, waxaana ay uga shakiyeen inuu yahay basaas laba wajiilo ah oo ay soo dirsadeen sirdoonka waddanka Masar. kadib markii uu xooga badan u gudbiyay, waxay aamineen Ashraf Marwan isagoona u shaqaynayay in ka badan 30 sano. sanadkii 1970 ilaa 1998 xasuusta ugu weyn ee ilaa hadda aan la ilaawi karin waxay ahayd dagaalkii Yom Kippur oo ay Israa'iil ugu abaalguday in ay siiso $100,000 maadaama oo uu badbaadiyay askarta waddankooda iyo dalkooda kuna bedeshay askarta waddankiisa.